السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاليال حبيب ونحسن. waxaa sharafiya inaan caawa halkan ka soo jeediyo kelmadeyda la xiriirta tababarinta jaamacadda Galguduud ee saldhigeedu yahay magaalada Caabudwaaq oo aan idinkaga mahadnaqo ka soo qaybgalkiina munaasabadan taageerada iyo dhiirigelinta aad la garab joogtaan mashruucan aadka loogu hanweyn yahay. hambalyo gaar ah iyo bogaadin waxaan u soo jeedinayaa dhalinyarada waqtigooda qaaliga iyo dhaqaalahoodaba u huray ee muujiyay midnimada oo budhigaha u noqday najixinta hawsha jaamacadda Galguduud. waxaan mahad gaar ah ilaahaygina haleelsiiyay dhismaha jaamacadda Galguduud iyo mashaariicda hadda ka hor noo qabsoontay sida airportka Caabudwaaq oo aan ku faraxsanahay sidaan uga qayb qaatay dhismihiisii iyo kuwa kale ee weli qabyada noo ah sida isbitaalka Charlesyaad ee Garbaharey iyo wixii lamid ah oo rajaynayo inaan si mudan uga dhex muuqan doono dhammaan hawlahaas insha Allah. guulaysta jaalaya waan idinku faraxsanahay idinna bogaadinaynaa dhammaan haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Columbus Ohio sida joogtada ugu ololeeya una suurageliyay mashaariicda aan carrabaabay. Allah idinka jaasasiiyo ummaduna waa idinka abaalhaysaa dadaalkaad u gasheen. aqoon la'aani waa iftiin la'aan, waa aqal iyo ilays la'aan, waa tacbiir sugan ee ka soo jeeda sugaanteenna beermasheegtada ah. dhanka kale kelmadii u horeysay ee loo waxyooday nabigeena naxariis dushiisa ha noqotee waa iqra. dunida maanta waa duni aqooneed waxaa haray oo fakhri daciifnimo dambayn iyo mustaqbal xumo u sugnaatay qofkii aqoon la'aani ku dhacday. Soomaalidu waa dad xariir ah, ilaahayna wuxuu na siiyey dal ballaaran oo barwaaqo ah oo weliba istaraatiijig ah. waxaana baday maanta meesha aan marayno oo ka hooseysa 55 sano ka hor meeshaan maraynay oo dalkeennii iyo karaamadeenniiba dhaawacay. ma aha qof jiran, ma aha qof gaajaysan, ee waa qof jaahil ah oo qabiilka dugsada oo qiimaha nabadda nolosha dowladnimada iyo aakhiradiisa midna aan aqoon. haddaanaan waxbarasho baahinteeda u guntan sharafta aan mudannahay xasilooni iyo dowladnimada aan ku haminayno midna ma fududaan doonto inaan gaarno. ilmaheenu ma heli doonaan dal iyo dad ay ku faanaan. waxaana khatar ugu jirnaa inaan noqono dad waayay. waqtigii xukuumaddii aan ra'iisul wasaaraha ka ahaa waxaan siinay waxbarashada mudnaan gaar ah. waxaan dib u soo celinay oo howlgelinay markii ugu horreysay 23 sano kadib dugsiyo dowladeed ee waxbarashadoodu lacag la'aan tahay ee xamar iyo gobollada qaar laga furay, kuwii ugu horreeyay ee macallimiintooda iyo manhajkoodaba dowladdu gacanta ku hayso. 2 jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo dhulkeedii iyo dhismayaasheediiba ay dayac xoog leh muteen maantana ah hay-ad shaqaysa oo miisaaniyad shaqaale iyo ardayba leh. 3 library qaranka oo dowlay oo aan u samaynay guddi board dib u nooleyntiisa iyo camirnaantiisa u hawlgalay. 4 samaynta guddiga maamulka deeqaha waxbarashada. dhanka kale waxaan curinay fikrad waxbarasho ee hana qaaday ee la yiraahdo aada dugsiyada ee horeba aan u qoondaynay 1 milyan oo arday oo waxbarasho lacag la'aan ah hesha iyo 2,000 oo macallin oo la shaqaalaysiiyo lana tababaro. Soomaaliya waa dalkayga hooyo ee aan jeclahay una noolahay u khidmayntiisa iyo ku haminta horumarintiisa. adeega dhagaysiga iyo ku dhex jirka dadku waa huwaayadayda. maxaa yeelay waxaan aqoonsanahay in dowladda dadku leeyahay oo dowladnimada dadka lagu yahay. anoo ka ambaqaadaya arrintaas sida aad wada ogtihiin waxaan markii ugu horreysay ee taariikhda dowladnimadeena cusub kadib 1991 socdaal dheer ee dhagaysi wada tashi iyo xog ogaanimo raadis ah aan ku gaalaa bixiyay inta badan gobollada iyo degmooyinka Soomaaliya. waxaan xaqiiqsaday mar labaad in dadkeenu yahay dad waxqabad ah oo horumarka iyo howlaha deegaankooda hanan kara. sidaas awgeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in la isku tashado oo maalgelinta aadanaha gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha mudnaan gaar ah la siiyo.
Caabudwaaq iyo Dhuusamareeb waa deegaankan ku dhashay oo ku soo barbaaray. Waxaan ka ahaa arday, waxaan ka soo noqday macallin. Waxaan u bareeray inaan dib ugu laabto 16 sano ka hor waqtigii dowlad la'aanta iyo amni darradu meeshii u sarreysay ay Soomaaliya ka maraysay, anoo garwadeen ka ahaa howlo la nooc ah hase yeeshee ka salbalaaran hawsha aan caawa halkan u fadhino oo isugu jirtay caafimaad, waxbarasho iyo biyo nadiif ah ee deegaankaasu helo, oo midowda Yurub EU iyo hay-ado madax bannaan ay wadajir ugu qoondeeyeen maaliyad ka badan $2 milyan waqtigaas. waxaa iigu dambeysay geyigaas bartamihii 2013 markaas oo aan booqday anoo ra'iisul wasaare Soomaaliya ah. deegaankaas iyo dadkiisaba si wanaagsan baan u aqaan. waa meel hodan ah oo dad iyo dunyaba ka camiran, kuna taal dhul qurxoon oo istiraatiijig ah. waa mudan tahay in ay yeelato jaamacad. anoo ka ambaqaadaya aragtidayda waxbarashada baahsan ee Soomaaliya oo dadku leeyahay, dadkuna wado, waxaan heegan u ahay gurmadka ka miro dhalinta howlaha jaamacadda Galgudud. waxaan si joogtaa uga qayb qaadanayaa qaaraanka marxaladaha kala duwan ee jaamacadda, sida dhismaha, howlgelinta iyo wixii lamida ilaa iyo inta ay isbixinayso jaamacadda Galgudud. waxaan kafaalo qaadayaa qaraamaadka waxbarashada qaar ka mid ah ardayda danyarta ah ee aan iska bixin karin qiimaha waxbarashada. dafcadda ugu horeysa ee ka qalinjabisa jaamacadda Galgudud, ardayda ugu dhibcaha sarreysa waxaan ka taageeri doonaa kharashka waxbarashada heerka 2 postgraduate. waxaan diyaar u ahay inaan u hibeeyo waqti iyo khibradba fududaynta xiriiro wax ku ool ah ee kaabaya sidii jaamacadda Galgudud ay u guuleysan lahayd. ugu dambeyn, waxaan ugu baaqayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadan, hay-adaha kaalmada bini'aadanimada bixiya iyo intii oraahdaydu gaartaba inay si deeqsinimo leh u taageeraan mashruuca jaamacadda Galgudud. cid kasta oo mashruucan wax taarata abaalkoodu ma dhumi doono ee wuxuu ku xardhanaan doonaa qalbigayaga. waxaana lagu kaydin doonaa diiwaanka jaamacadda. mahadsanidin. guuleysta.